السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaad ardayda dhamaan ku soo dhawow Greenways Academy. Waa Ustaad Cumar Xareed. Muuqaalkan waa 10 grammar ah. Wax badanna waad ku baran doontaa haddii aan yiraahdo. Waxaan halkan uga jawaabi rabaa ardayda mid kamid ah su'aal uu soo weydiiyay luqadda Englishka qofka inuu barto grammarka muhiim ma yahay mise muhiim ma ahan. Jawaabta saxda ah muuqaalkan baad ku ogaan doontaa haddii aan yiraahdo. La soco kanaalka ka mid noqo si aan u gaarno 1 milyan subscribe. muuqaalkana like garee. haddaba lixdan jumlo aan isla eegno. jumlada ugu horeyso I am a teacher. macallin baan ahay. We are teachers. macallimiin ayaan nahay. I will play football later. banooni ayaan hadhowda ciyaari doonaa. I play football. banooni ayaan cayaaraa. I want to eat an apple. tufaax ayaan rabaa inaan cuno. I want to eat the apple. tufaaxi ayaan rabaa inaan cuno. halkaas marka aad eegtido halkaas ay joogto waxaan ogaanaynaa in shuruucyo kala duwan la isticmaalay. haddaba marka jawaabta ayaa waxay tahay grammarka in ardayga uu barto aad bay muhiim u tahay. waxayna ka caawinaysaa luqadda Englishka inuu ku hadli karo si wacanna uu u qori karo. jumlada ugu horeyso I am a teacher waxaan isticmaalnay article oo ah article-laduna noun-ka ayay faahfaahin ka bixiyaan. So for this case waxaan isticmaalaa article a. article a waxaa loo isticmaalaa consonants-ka ereyada shibanayaasha ka hor. So I am a teacher. So haddii laakiin ay noun-ku hadduu noqdo jamac article ma isticmaalist. So for this case we are teachers. macallimiin ayaan nahay. ma dhehaysid we are a teachers. You can't say that. So waa inaad fahansan tahay isticmaalka articles-ka. I will play football later. banooni ayaan hadhow ciyaari doonaa. iyo I play football. halkan labadan jumladood marka maxay ku kala duwan yihiin? jumlada waxay ku kala duwan yihiin. jumladan labo verb ayaa ku jiro. main verb-keena waa play. waxay kaloo jumladanu ay sidataa helping verb. yani verb caawinayo main verb-ka. So wiilkan marka wuxuu turjumaan ka bixinayaa this verb of play waqtiga uu dhacayo oo ah hadhow aan la gaarin. midkaana haddaad wiilka aad ka bixisid oo ah iyo aad ka bixisid later laftirkeeda sidoo kale waa adverb. So I play football haddaad tiraahdo kaliya waxay noqonaysaa waa present tense oo ah banooni ayaan ciyaaraa mar walba si joogto ah. midda shanaad I want to eat an apple. waxaan rabaa inaan tufaax cuno. So waxaan isticmaalaa article an. haddii aan marka dhahna ka waran I want to eat the apple oo aan da isticmaalno. So waxaan halkan kala saaraynaa marka definite article iyo indefinite article waxay ku kala duwan yihiin oo ah indefinite article waa article la isticmaalo markaad wax guud aad ka hadlaysid. definite article oo for this case oo da isticmaalanana waxaan ka hadlaynaa specific thing oo ah I want to eat the apple. tufaaxi ayaan rabaa inaan cuno. marka waa tufaaxa isla naqaan adiga iyo aniga. laakiin markaan I want to eat an apple tufaaxa ayaa cuni rabaa. So it's not a specific apple. haddaba haddii aad rabto marka inaad grammarka aad mastergraysid there are 5 blocks oo muhiim ah. guriga sidiisaba marka la dhisayo waxaa la sameeyaa asaasiyaadka ayaa la dhisaa. luqadda Englishka grammarka ahna 5tan ayaa muhiim ah inaad baratid. So you have to master the basics. tan ugu horeyso waxa weeyaan waa inaad fahansan tahay verbs-ka sida loo isticmaalo aad fahmi kartid. waxaa ku xigo nouns. waxaa ku xigo pronouns. waxaa ku xigo adjectives. iyo midda shanaad adverbs. so 5tan waxay asaasiyaad u yihiin boqolkiiba 80 grammarka isticmaalkiisa. waa 5tan haddaa fahantid. kuwo kale ayaa jiro muhiim ah laakiin 5tan isticmaalkooda iyo fahankooda haddaad fahantid dad badan ayaad ka horeysaa. luqadda Englishka ku hadalkeedana way kuu fududaanaysaa. qoraalkeedana wuu kuu fududaanayaa maadaama aad shuruucyada iyo isticmaalkooda aad fahantay. midda ugu horeysa waxaan baranaynaa verbs. verbku marka waa ficil. So a verb is a word that describes what someone or something is doing. So verbku wuxuu sharaxaad ka bixiyaa qof ama shay
waxa uu sameynayo ficilka uu sameynayo so verbyada marka aad bay muhiim u yihiin nounka xataa ka muhiimsan number 1 waxa ku jira verb sababtuna waa maxay jumlo ma jirto luqadda Englishka aad dhisi kartid adoonan wax verb ah aad isticmaalin laakiin jumlo waxa jirto luqadda Englishka verb kaliya ku dhisan oo wax noun aan lahayn wax kalena aan lahayn sidaas ma ogtahay let me show you tusaale ahaan jumladan hadda la yiraahdo hadda let's say these examples stop oo kale stop ama listen oo kale ama come oo kale so kuwan waa jumlooyin dhameystiran waa complete sentence waana verb kaliya laakiin halkan subjectigu uu qarsoon yahay macnaha subjectigu waa you oo kale waa xal markaad dhehaysid oo kale waxa weyn you stop so marka you stop ma dhehaysid just you say stop joogso or you say come imo or you say listen dhegeyso laakiin subjectigana uu qarsoon yahay subjectigana waa you oo ah Allah hadleeno second person yani qofka labaad oo hadalka leh so stop listen come all these verbs waa jumlooyin dhameystiran oo micno dhameystiran la gudbinayo tusaalahana isla aragno I run every day yimida xigto I love Jessica I love Jessica waa qof magaciis okay so marka halkan laba jumla ayaan ku haysanaa I run every day maalin alla keeno waan ordaa so ficilkeena waa run so verbkan marka halkan wuxuu turjumaan ka bixinayaa maaragtay actionka oo ah running in qofku uu ordo so I run every day maalin alla keeno waan ordaa so here we can see that action of what so this verb represents the action of running and here now I love Jessica waxaan jeclahay Jessica verbkan halkan marka waa love so halkan marka verbyadu kuwana waa kuwa action verbs ah oo aad arki kartid ficil dhacayo kuwana waa kuwa xaalad state ka turjumaan hadda halkan oo kale love it's not an action that you can see but maxay sameynaysaa waxay turjumaad ka bixinaysaa that state of being loved okay so verbyadu marka waxaan ogaanaynaa kuwana waa kuwa ficil dhacayo aad arki kartid kuwana waa kuwa state oo xaalad ka warrama so every time we try to speak or maybe write in English we usually like to express our feeling in form of action badanaa luqadda Englishka markaan rabno inaan ku hadalno ama aan qorno waxaan jecelnahay in aan soo bandhigno ficilka aan sameynayno that's why verbs are really important so marka let's now see haddii jumlo ay noqon lahayd verb la'aan what will happen maxaa dhacayo let's see this example salaana isla aragno this example salahan I to cinema every day so marka halkan wax verb ah kuma jiro I to cinema every day macnaha ma sameynayso laakiin waxa laga yaabaa macnaha guud inaad fahantid oo halkan waxa ka maqan I go verbka waxa ka maqan go okay so halkan waxa ka maqan go so I go to cinema every day maalin la keeno shaleemada ayaan aadaa laakiin haddii verbku meeshan uu ka maqan yahay oo ay tahay kaliya I to cinema every day jumlada wax macno ah iyo wax dhadhan ah toona ma artay ma yeelanayso okay aan isla aragno sidoo kale wax la yiraahdo helping verbs wali verbyada ayaan ku jirnaa helping verbs so helping verbs waa verbyo caawiyo main verbka ayaa caawiyaan so marka waxaa jiro waxa la dhaho main verb iyo helping verb main verb iyo helping verb so main verb waa verbka ka turjumayo ficilka dhacayo jumladaasi ku jiro helping verbkana wuxuu caawiyaa main verbka ayuu caawiyaa si uu xog ama faahfaahin dheeraad ah
uga bixiyo tusaalahan isla arkayna I will play football later. So let's see this example. I will play football later. waxaan ciyaarayaa hadhow ayaa waxaan ciyaarayaa banooni ayaan ciyaarayaa so marka main verb keena waa play because it is the verb that shows this action of what of playing laakiin will is a helping verb wuxuu caawinayaa this main verb oo play ah ayuu dhadhan u sameynayaa waqtigee ayaa la ciyaarayaa banoonigaas so it shows it gives what more detail so marka will maxay sameynaysaa marka so will is a helping verb waa helping verb weeyaan are we together that's good so haddaan marka aan will meesha ka bixino iyo later waan baran doonaa adverb aan ku baran doonaa later sidoo kale waxay faahfaahin ka bixinaysaa this verb of play goormaa la ciyaaraya hadhow okay so later is an adverb as well haddaan marka later na ka bixino will na ka bixino maxay noqonaysaa jumladu waxay noqonaysaa I play football waxay noqonaysaa I play football so waa present waa jumlo present tense ah waxaan ciyaaraa banooni so it shows this is an action that what you do based on a routine waa wax aad si joogto ah aad u samaysid of which ma qaldano I play football iyo haddaad tiraahdo I will play football later so wiltan aa isticmaashay latergana isticmaashay jumlada aa kusoo dartay waxay micno kaloo cusub ayay u sameynaysaa micnaha wuu isbedelayaa I will play football later I play football micnaha saas uu isku bedelayaa so when you have a helping verb micnuhu wuu isbedelayaa tusaalahan kale aan isla aragnay other example I am Jessica aniga waxaan ahay Jessica verbkeena waa kee waa am so am is our main verb so sometimes waxaa dhacdo main verbka jumladaasi ku jiro in uu yahay helping verb kaliya oo another verb uusan ku jirin that shows an action sida jumladan oo kale wax verb kale oo tusinayo ficil dhacaya ma jiro verbkeena waa am and that's it luqadda Englishkana way dhacdaa in helping verb kaliya uu yahay the main verb of the sentence mid kale waa muhiimka ah inaan barano xawiyaan nouns so nounku waa magac bini aadankuna aad bay u jecel yihiin wax walba ay arkaan inay magacaabaan so nounku muxuu sameeyaa so nouns can name anything so it can name places people animals or maybe an idea so nounku marka wuxuu sameeyaa qof baad magacaabi kartaa shay baad magacaabi kartaa meel baad magacaabi kartaa ama fikir niyadaada ku jiro ayaad magacaabi kartaa tusaalooyin asla arkeenaa let's see this example my dog is small so marka halkan nounka aan ku haysano waa dog iyo aan isla aragna jumladan waxay ku kala duwan yihiin my dog is Chihuahua. My dog is Chihuahua. Okay, labadan jumlad maxay kala duwan yihiin my dog is small my dog is Chihuahua maxay kala duwan yihiin halkan my dog is small eegaygu waa eeyar so magaca halkan aan ku haysano waa dog so halkan waxaan ku haysano my dog is Chihuahua waxay ku kala duwan yihiin so dog here waxaan u isticmaalnaa waxa la yiraahdo common noun okay so marka eegan aan hadda ka hadlayno is a name that is common laakiin marka aan nahno my dog is Chihuahua macnaha waxay tahay eegaygu waa nooca Chihuahua noocyo kala duwan so a specific species of a dog ayaan ka hadlaynaa marka so waxaan halkan marka ku baranaynaa marka nounka loo yimaado common noun iyo waxa la yiraahdo proper
noun. So common noun waa magaca guud, proper noun-na waa specific name, waa magac qaas ah. waxaan sidoo kale baranaynaa common noun-ku capitalization ma isticmaalno oo maaragtay xarafka ugu horeeyo capital kama dhigno, laakiin proper noun magaca xarafka ugu horeeyo letterka ugu horeeyo waxaan ka dhignaa we use capitalization oo ah xarafka ugu horeeyo waxaan ka dhignaa capital letter. So sharcigaas waa inaad fahmi kartid. So haddaba marka structure-ka hadda jumladan ay ku dhisan tahay my dog is chihuahua, waxaan dhihi karnaa marka waxay ka samaysan tahay structure-ka jumladu badanaa luqadda Englishka ay ku dhisan yihiin waxay tahay waa subject plus verb plus object. Okay, so marka in this case now my dog is chihuahua. So marka halkan subjectigeena waa my dog, subjectiga waa qofka ficilka sameynayo, isna waa verbkeena, chihuahua-na waa objectigeena. Okay, so marka halkan waxaan ku haysanaa marka laba noun, midna waa midka ficilka sameynayo, midka kalena wuxuu ka turjumayaa meesha ficilka uu ku dhacayo oo objectiga ah. midka saddexaad oo muhiim ah inaad baratid waxa weeyaan pronouns. Pronoun waxaa la yiraahdaa magacuyaal. Noun-na waxaan dhahnaa aan soo dhaafnay magac. Okay, so marka pronoun-ku waxay la shaqeeyaan noun-ka ayay la shaqeeyaan. Noun-ka ayay replace garayaan. Sidee u replace garayaan? Waa isla arkeynaa. Let's see an example. So jumladan isla arkeynaa. jumladan Halima and Fatuma are students. Halima iyo Fatuma waa arday. So Halima is a noun, Fatuma also is a noun. Laakiin noun iyay ka sii yihiin, qoladay ka sii yihiin, waxay ka yihiin proper noun. Proper noun-na waxaan dhahnay waa magac specific ah. Are we together? So Halima and Fatuma are students. Halima iyo Fatuma waa arday. So waxaan dhihi karnaa annagoo soo gaabsanayno waxaan dhihi karnaa they are students. Ayaga waa arday. They are students. So Halima iyo Fatuma intaan isku qabanay labadaas ayaa waxaan isticmaalnay pronoun plural ah they la yiraahdo. They are students. Ayagu waa arday. So now pronoun-ku marka waxaan isticmaalnaa marka aan rabno luqadda Englishka waxa aan sheegin in aan iska soo gaabsano, and we want to speak very fast oo si boobsiis ahna aan u hadalno. So waxaan isla eegaynaa marka pronoun-ka ayaa waxay u kala qaybsamaan kuwa la yiraahdo subject pronouns iyo object pronoun. Subject pronouns iyo object pronouns. Ayadana waa muhiim luqadda Englishka grammarka fahankiisa inaad fahantay, inaad kala fahantay subject pronoun iyo object pronoun. Subject waxaan dhahnaa waa kuwa ficilka sameeya, objectna meesha ficilka uu ku dhacayo. Tusaale ahaan oo kale pronoun-yadu marka waxay u qaybsamaan saddex. kuwa la yiraahdo first person waa qofka koowaad oo warka leh. Second person iyo third person. waa inaad saas u kala fahantid. So first person waa qofka koowaad oo warka leh. First person marka pronouns-ka waa I iyo we. So I waa aniga, we-na waa markaan jamc nahay. Second person waa you iyo you. waa adiga iyo idinka. Englishka isma bedelo. marka aad qof keligiis la hadlayso adiga aad leedahay waa you. markaad idinka leedahayna oo jamacna waa you, isma bedelo. Third person waa he, she iyo it. So he waa qof rag ah oo kaa maqan, she waa qof dumar ah oo kaa maqan, itna waxaa loo isticmaalaa xayawaanka iyo wixii aanan naf aan lahayn oo shay ah. So intaas marka saddexdaas waxaa la isku yidhaahdaa third person. waxaa sidoo kale jamac u ah intaan they ayaa jamac u ah they. So he waxaa jamac u ah they, she waxaa jamac u ah they, itna waxaa jamac u ah they.
so intaan marka waxaa la isku yiraahdaa subject pronouns. So marka maadaama hadda subjectiga aan sharaxno objectina waa muhiim inaan fahanno. So subject pronouns waa pronounyada ficilka sameeya, objectna waa kuwa ficilka meesha uu ku dhaco. Okay, so subjectiga markuu yahay I yahay, objectigaaga wuxuu noqonayaa me, object pronounkaaga. Subjectigaaga hadduu yahay you, objectigaaga wuxuu noqonayaa you kaliya, object pronounka isma bedelayso. Subjectigaaga hadduu yahay he, object pronounkaaga wuxuu noqonayaa him, asaga, him. Subject pronounkaaga hadduu yahay she, object pronounkaaga wuxuu noqonayaa her. hadduu subject pronounkaaga uu yahay it, isma bedelayso waa it. hadduu subject pronounkaaga uu yahay we, objective pronounkaaga wuxuu noqonayaa us. Theyna hadduu yahayna waxay noqonaysaa them. Okay, so marka inaad saas u kala fahantid. Subject waa kuwa ficilka sameeya oo jumlada aad ku bilaabaysid, objectna waa meesha ficilka uu ku dhacayo. So marka waa inaad kala fahantid I iyo me maxay ku kala duwan yihiin. midda afraad oo muhiimka ah waa adjectives inaad fahantid. Adjectives waxaa la yiraahdaa sifad bixiyaal, waxay information ka bixiyaan nounska. Okay, nounka aan soo sheegnay ayay information ka bixiyaan. sida aan u dhahnay bini'aadamku waxay jecel yihiin wax walba ay arkaan inay magacaabaan si la mid ah. aad bay muhiim u tahay in aan description aan ka bixin karna ama faahfaahin, yani waxa aan magacaabeeno. tusaale ahaan oo kale haddaan dhahno, let's see an example. The music is loud. The music is loud. jumladan heesta is loud, yani aad bay u sareysaa. So marka loud is an adjective. We can also replace, waxaan dhihi karnaa the music is melodic. So loud kan adjective ka ah, another words that you can use waxaan dhihi karnaa waa melodic. Yani mid ma aragtay isku aadisan oo ma aragtay dhagahaaga uu ku raaxaysnay. We can say also the music is beautiful. waa hees qurxoon. We can say the music is irritating. So irritating is something that's making you what? Unhappy. يعني so irritating. Yani waa wax kaa caraysiinayo, kaa xanaajinayo. So that's why noun kaliya naguma filnaan karo in aan jumla aan dhisno. We also need adjective maaragtay for us to do what? To give whatever we want to say in a description badan ka bixinana, faahfaahin badan ka bixino. Okay, so that's where we need adjective. The music is loud. Has to add bay u sareysaa. You can see the music is irritating. So haddii adjective aanan heesan lahayn, macno badan jumlada ma sameynayso. waxaa kaloo jirto oo aad muhiim u ah sometimes in adjective-ka uu noqon karo noun. Okay, let's see. Aan isla aragno tusaalahan oo kale. Let's see this example. Jessica's music is irritating. Jessica heesteeda waa hees irritating ah oo ka caraysiinayso. It means it's not good. So marka here Jessica waxaan isticmaal apostrophe s. So marka waxay noqonaysaa heestan ayaa iska leh, Jessica ayaa leh. Jessica's music is irritating. Jessica heesteeda waa irritating. So magacii marka Jessica ahaa baa hadda wuxuu isku bedelay adjective oo wuxuu noqday possessive adjective. Adjective-yada sifa bixiyaasha ah. So ayadana aad bay muhiim u tahay inaad fahantid in sometimes a noun can be an adjective. oo marka aad rabtid inaad lahaansho aad soo bandhigtid waxaad isticmaalaysaa apostrophe iyo s. Apostrophe hakadkaas iyo s ayaa isticmaalaysaa. marka wuxuu noqonayaa Jessica's music is irritating. Heesta Jessica waa irritating. It's not good. Waa hees kugu soconaysa maahan. Waa hees kaa caraysiinayso.
qaybta ugu dambayso aan rabo in adjective ku soo gabagabeeyo waxa weeyaan articles so articles laftirkooda waa part of adjectives tusaale ahaan haddaad rabto inaad dhahdid I am a teacher a'dan waa article and it represent adjective waa sifo maxay faahfaahin ka bixinaysaa macalinka I am a teacher macalin ayaan ahay okay so it is an article and also at the same time it is what it is an adjective oo haddaad tiraha I am teacher macno badan ma sameynayso laakiin haddaad tiraha I am a teacher you are giving out what more descriptive so marka articleku laftirkooda aad buu muhiim u yahay articleaduna waa saddex waxay u kala qaybsamaan articlesku so articleska waa saddex oo muhiim ah waa inaad fahantid a iyo maaragtay a iyo an oo israaco oo waxaa la isku yidhaahdaa indefinite articles iyo the article the so a iyo an a'du waxaa loo isticmaalaa consonant words oo kale okay so erey walba oo ka bilowdo shibane anna waxaa loo isticmaalaa erey walba oo ka bilowdo vowel sida a e i o iyo u ana waxaa isticmaalaa inta kala soo hartay da marka waxay uga duwan tahay kuwan da waxaa loo isticmaalaa specific thing wadii hadayta aan dhehayno kale I want to eat the apple waxaan rabaa inaan tufaaxa cuno the apple marka aan dhaho I'm talking about a specific apple tufaax aan isla naqaan aniga adiga ayaan ka waramaya laakiin haddaan dhaho I want to eat an apple waxaan rabaa inaan tufaax aan cuno halkaas waxaan ka waramaya any apple are we together so marka articles ku laftirkooda aad bay muhiim u yihiin marka la yiraahdo adjective-ka so waa inaad fahansan tahay adjective-ka sida loo isticmaalo si aad u ogaatid jumlada aad dhisaysid maxay tahay midda shanaad oo muhiim ah waa adverbs so waxaan dhahnay waxaan aad u jecelnahay inaan wax walba aragno inaan magacaawno wixii aan magacaawno waxaan jecelnahay inaan sifo ka sii bixino aan si tilmaano intaas kaliya luqadda Englishka ku maartay kuma filno waxaa sidoo kale u baahan tahay adverbs oo ah in aad wixii sii tilmaamtay adoo magacaabay oo sifo ka sii bixi in haddana qaabkii waxay u dhaceen inaad tilmaamtid iyo meeshii ay ku dhaceen iyo yaa wixii sameeyay okay so marka adverbsku maxay sameeyaan adverbsku waxay information ka bixiyaan another verb so they describe another verb also another adjective ayay macluumaad ka bixiyaan iyo also other verbs other adverbs okay so intaba macluumaad ayay ka bixiyaan tusaale ahaan oo kale let's see this example my daughter is extremely polite okay gabadhayda aad ayay polite u tahay my daughter is extremely polite jumladaadan haddaad tiraahdo my daughter is polite way kugu filan tahay my daughter is polite yani gabadhaydu waa gabar polite ah gabar degan oo dadka respect garayso okay yeah laakiin markaad extreme aad sii raacisid extreme kan just now an adverb okay extremely okay so marka waxaad tilmaamaysaa how polite is this daughter at what extent qiyaas intee leeg ayay polite so she is extremely polite aad ayay polite u tahay so marka polite is an adjective extremelyna waa adverb so sidoo kale adverbka waxa uu isticmaali kartaa marka aad degree of something aad inaad soo bandhigtid haddaad dhahdid tusaale ahaan oo kale the horse can run quickly faraska aad buu u dheereeyaa so marka quickly is an adverb wuxuu faahfaahin ka bixinayaa the verb or run so the horse can run quickly so how fast this horse can run ayay marka quickly gas ay ka bixinaysaa
so badana adverbyadu waxay ku dhamaadaan l e y laakiin waxaa jirto adverbyo aanan systemkaas aanan raacin oo l e y aanan ku dhamaanin so waxaan kaloo marka isticmaali karnaa wax la yiraahdo comparative iyo superlative in adverbs oo ah inaan isbarbar dhigno tusaalaha haddaan rabno inaan dhahno faraskan wuxuu ka dheereeyaa faras kale waxaan leenahay the horse can run more quickly waan dhihi karnaa the horse can run more quickly haddaan rabno inaan dhahnana faraskaas asaga ugu dheereeya farasyada waxaan leenahay the horse can run most quickly yani asaga ayaa ugu dheereeyo so marka waa inaa marka fahmi kartid the use of comparative and superlatives to measure the degree of something. Are we together? Yeah. So marka waxaa marka jirto sometimes ardayda aad u confuse gareeyo goorma la isticmaalaa waxaa jirto marka aad comparative iyo superlative isticmaalaysid so comparative waxaa loo isticmaalaa laba wax marka isbarbar dhigaysid superlative-na wixii laba ka badan 3 iyo 4 marka leedahay waxaas ugu wanaagsan so jumlada marka aad leedahay the horse can run more quickly waxa dhigi kartaa the horse is quicker than the other horse oo kale maybe so quicker waa isticmaali kartaa adoo e r gadaal ugu darayo laakiin marka la isticmaalo more iyo most gorma la isticmaalaa more iyo most waxaa la isticmaalaa comparative iyo superlative-ku ereyga hadduu ka kooban yahay more than one syllable tusaale ahaan oo kale more than one syllable maxaa laga wadaa ereyga inta uu u jajabo hadda ereygan quick waa one word waa one syllable waa how about beautiful oo kale beautiful ma qajaru uu jajabo how many syllable beautiful saddex jeer ayuu jajabaa so marka ereyga hadduu more than one syllable hadduu yahay waxaa isticmaalaysaa more iyo most for you to compare okay so marka waxaa leedahay more beautiful ama most beautiful laakiin ereyga hadduu yahay one syllable kaliya waxaa isticmaalaysaa er at the end quicker for comparative and est for superlative quickest waxaan rajeynaa marka intaas inaad fahantay aad marka muhiim u tahay inaad fahamtid when you want to compare maaragtay comparative and superlative in adverbs to show the certain degree of something hadda muuqaalkan insha Allah halkaas ayuu ku egahay waxaan rajeynayaa casharkan at least 30 ilaa 25 daqiiqo weeyaan inaad wax badan aad ka fahantay grammarka waxa asaasiyad u ah shanta hadda ka soo hadlay verb oo number 1 ah very important ah noun pronoun adjective iyo adverb shantaas aad muhiim u tahay qaybta xigto oo sida conjunction preposition iyo interjection saddexdaas kale muuqaal kale ayaan ka soo sameyn doonaa sidoo kale ayagu waa muhiim laakiin shantan ayaa ugu muhiimsan verb noun pronoun adjective iyo adverb so shantaas haddaa aad u fahantid isticmaalkooda 80% grammarka luqadda Englishka waad haysaa so halkaas marka waxaan ka ogaanaynaa grammarka barashadiisa inay qayb weyn ay ka tahay ku hadalka luqadda Englishka iyo sidoo kale qoraalka laakiin ayaa ku jirto laakiin ayaa waxay tahay marka aad rabtid luqadda English ku hadashid grammar inaa xifdisay kaliya kuuma faasna wayna ogaa so grammarka baro laakiin sidoo kale waa inaad practice garaysid sida luqadda Englishka aad ugu hadli lahayd adoo isticmaalayo ruleska grammarka luqadda Englishka sida aad ugu hadli lahaydna muuqaalo badan ayaan ku soo sharaxay waxa kamid ah muuqaalkan oo kale waa aad daawan kartid insha Allah kanaalka noo subscribe gareeya muuqaalkana la gareeya si arday badan ay uga faa'iidaan insha Allah hadba yiraahdo cashar gaar ahna waa bixinaa oo Zoom iyo Telegram ku baxo koorso dhameystiran oo grammar ah hadaa rabtid min bilow ilaa dhamaad waad wax badan aad ku baran kartid school aan lagu baran insha Allah Greenways Academy ayaad ka helaysaa soo dhawaada dhamantiin